Asalaamu calaykum waan salaamayaa akhyaarta ku xidhan channelkan Raacday Academy. Waxaan doonayaa maanta inaan halkan kaga hadlo ama aan ku kala faa'iidaysano qodob run ahaantii aan u arkay inuu aad iyo aad muhiim u yahay, gaar ahaan dadka ku jira circle-ka ama systemka akademiyada iyo waxyaabaha la halmaala. Si gaara waxaan casharkan doonayaa inay ugu kala faa'iidaysano ardayda undergraduate-ka ee diyaarinaysa buuggii qalin jabinta amaba ku hawlan inuu bilaabo paper amaba jecel inuu akhristo maxaa la dhahayay research-yada kala duwan ama artikalada ama paperada kala duwan ee sida cilmiga loo qoray. Marka sida halkan aan ku arki karno waxa uu ka hadlayaa qoraalkan ama aan doonaya inaan qodobkan haddii Ilaahay ka dhigo aan ku kala faa'iidaysano how to read scholarly article or research question ayuu ka hadlayaa. Marka run ahaantii waxay u kalifay mawduucan inaan wax ka diyaariyo ama qodob kooban ka idhaahdo muhiimadda uu leeyahay daraadii, oo ay ugu horeyso marka uu ardaygu diyaarinayo tusaale ahaan ardayda gaar ahaan undergraduate-ka ahi buuggii ay diyaarinayaan ama proposalkii loo diro amaba uu chapterkii koowaad bilaabo ama macallinku ku yidhaahdo research-ka akhri dabeetana summary kusoo samee, dhibaato fara badan ayay ardaygaasi run ahaantii ay kala kulmaan, gaar ahaan ardayda waddanka gudihiisa ama jaamacadaha Soomaalida wax ka baranaya. Dawaq fara badan ayay kala kulmaan, dhibaato fara badan bay kala kulmaan, waayo waxaa laga yaabaa waxaanu ardaygu fahansanayn in ay completely kala gedisan yihiin scholarly article ama research paper iyo buugtan kale ee uu la qabsaday sida buuggiisii textbook ahaa, buug tusaale ahaan gabay Soomaali ka hadlaya ama taariikh Soomaaliyeed ka hadlaya amaba noofala iyo research run ahaantii aad iyo aad bay u kala duwan yihiin. waxaa laga yaabaa research paper markaynu ka hadlayno inay tahay warqad ka kooban 20 page ugu badnaan ama 1 ilaa 20 page ama 1 ilaa 15 14 ama 7 page meelahaas. 10ka page mawduuc ka hadlaysa, mawduucaas si qoto dheer oo cilmiga loogu faahfaahiyey, loogu sharaxay, ma garanaysaayee hypothesize ama research question qoraagii ama cilmi baarihii uu qaatay, baaritaan uu geliyey, maxaa la dhahay researchyo kale oo fara badan uu soo xigtay, qoraallo fara badan uu soo xigtay. In ka badan waxaa laga yaabaa 20-30 article uu isugu keenay warqadda yar ee 7 page ama 8 page. Marka in aad akhridaa run ahaantii oo aad xaggaa uga baxdaa waa okay haddaad time ka hayso, laakiin waxaan kasoo qaadaynaa tusaale ahaan waxaad tahay arday buuggii diyaarinaya ama proposalkii diyaarinaya, waxaad haysataa kasoo qaad 20 paper. 20 paperkaasi dhammaantood waa cilmi baadhisyo, waxaad doonaysaa inaad mid walba akhrido. sidaa daraaddeed waxaan doonaya halkan inaan kugu caawiyo sida ugu habboon ee aad u akhri karto research paperkan adiga oo saacad gudaheed research kasta kusoo khulaasaynaya ama kusoo summarize gareynaya ama saacad iyo wax ka yar, inagoo ka duulayna oo aad mar walba maskaxda igula hayn doonto in waxa la yidhaahdo research paperku ay ka duwan tahay novel, ay ka duwan tahay gabay, ay ka duwan tahay other history kale oo aad meelaha ka akhrida ay ka duwan tahay. Marka waxaan baahannahay waa inaad inaad researchkan akhrido muddo kooban 30 daqiiqo 40 daqiiqo halkii researchka ku qaadato, dabeetana adigoo tusaale ahaan 20 paper haysta jaamacad waxa weeyaan muddo yar gudaheed inaad 20 article mucda ku jira kala soo dhex bixi karto. Marka qaab loo akhriyo ayay leeyihiin researchyada iyo magaranaysaay cilmi baadhisyada kala duwan ee dunida lagu soo publish garaya. Hadda halkan ka hadli mayno sidee loo helaa research paper internetka looga soo dhex saaraa, sidee loo tawsiiqiyaa ama loo hubiyaa, waxyaabaha ka hadli mayno. Marka halkan waxaan doonaya keliya inaan 3 step ka hadlo. 3daa step waxay kaa caawinayaan how to read research paper, dabeetana aad xogta ugala baxdo. Stepka koowaad ee halkan kaga hadlaynaa waxa weeyaan hadii Ilaahay ka dhigo stepka koowaad waxa weeyaan si aad u akhrito research paper waa inaad leedahay clear objective ama reason you have to read the paper. waa inaad leedahay objective cad oo aad warqadan u akhriyayso ama cilmi baaristan aad u akhriyayso. Objectivekaasi waxa uu kaa caawinayaa inaad markaad researchkan akhrido si fudud xogta aad u baahan tahay aad ugala soo dhex baxdo. marka waa in objectivekaagu cad.
laba haddii aad tusaale ahaan oo kale ardayda oo kale maadaama uu aada u khuseeyo waa in titlekaagu uu yahay mid yacni clear ah oo definite ah oo lasoo tawsiiqiyey professorkaaga ama advisorkaaga aad kala tashatay ama qof kale oo tusaale ahaan ama aad adigu magaranaysaay haddii aad cilmi baadho madax bannaan tahay design garaysay oo aad soo qorshaysay taa macnaheedu waxa weeye waa inaad title clear define mid ah aad marka laga hadlayo objectivekiisii scopekiisii ama research title ama hypertype waa inay tahay clear oo ay ku caddahay taa macnaheedu waxa weeyaan markaad siito hypertypes ama research question aad siito waxaad garanaysaa waxaad u baahan tahay waxaad garanaysaa aad isweydiinaysaa what kind of research do I need ayaan isweydiinaya marka dabeetana internetka markaad gashay aad boqolaal research ilaa 10 research dhowr iyo 20 research la soo degto waxaad garanaysaa researchka aad u baahan tahay waxaad isweydiinaysaa hypertypes baad siitaa hypertypeska aad siito ama research questionka ama areada aad baaritaanka ku samaynayso xogta aad u baahan tahay researchka ku siin kara iyo aanka ku siinin ayaad kala garanaysaa marka halkan waxaan ku adeegsanay erey muhiim oo kaa ka hadlaya oo ah waa inaad leedahay tusaale ahaan oo kale mawduucaagu waa inuu leeyahay relevant research paperkan aad gacanta ku hayso relevant waa inuu leeyahay marka relevantkaas in term of objectiveskii marka laga hadlayo scopekii other variableska kale importantiga waa inuu completely relevant leeyahay si uu u noqon garaysaa wixii aynu paperkaynu akhriyayno ay tayo u yeelato waxaa laga yaabaa novelka inaad magaciisa u maqashay ama contentkiisa aad ka hesho saa ku akhrido ama qof kuu ammaano ama aad warbaahinta meelaha kala socoto laakiin markay tahay research waa wax objective waa inuu meesha mar walba jiraa sida dunida research oo kale ku akhriyo haddaba markaad researchka akhriyayso mar walba goolkaagu waxa weeye waa in aad fahanto yacni researchkan aad haysaa scientific contributionka uu qoraagani keenay ayaad doonaysaa waayo research kasta oo la sameeyo waxa uu leeyahay wax leedahay scientific contribution ama significancy si kale haddii loo dhigo ama muhiimad macnaheedu waxa weeye research baan sameeyey researchkaasi waxbuu keenaya kusoo kordhinaya dunidii waa cilmi baaris cilmi baaristana contribution bay samaynaysaa oo ay aqoontii iyo magaranaysaa majaalkii ka hadlaysay iyo wixiibaa ay kusoo gudbinaysaa daadis bay markaa aad researchkan waa inaad markaa gool yeelataa qodob kale muhiimka waxa weeyaan markaad researchka akhriyayso waa inaad mar walba ku haysaa inay ka duwan tahay noofallada sheekooyinka gabayada iyo other reports sida kale ee tusaale ahaan ama government reports ama mid shaqo ama mid assessment waxaas completely waa different marka kaas waa stepka koowaad waa inaad objective cad leedahay waa inaad hypertypes ama research question wadataa waa inay research questionkaagu relative la tahay ama xiriir la leedahay researchkaad akhriyayso waa inaad mar walba niyadda ku haysaa researchku inuu scientific contribution kusoo kordhinayo meesha waa inaad maskaxda ku haysaa in noo fuliyo waxaa researchku aanu muran badan tahay stepka koowaad markaad intaa qorshaha qarsato ka labaad baan u gudbaynaa ka labaad waxaa laga yaabaa run ahaantii inaanu 40 minutes aanu magaranaysaa u gudbin cafwan halkan way khaldan tahay 40 minutes ma noqonayo kani ka dambe weeye ka 40 minutes iyo magaranaysaa waxyaabaha inta badan ka hadlaya maaha kan 40 minutes isagu halkan maaha isagu waa isla assessment ka qodobka ugu muhiimsan dambe waa ka u dambeeyay ka hadlayno qodobkan second stepka isagu waxa weeyaan waa inaad researchkii ku samayso maxaa la dhahay quick scan ama quick reading aad ku samayso leeyahay wuxuu yahay 20 article baad la soo degtay marka 20 ka article indhaha maad wada gelin laakiin kaliya waxaad soo qaadatay uun oo aad assume garaynaysaa inay research titlekaagan ama hypertypeskaagan xiriir la leeyihiin sidaa daraaddeed marka aad la soo degto waxa qurux badan intaanad horta bit by bit u dhex gelin inaad ku samayso quick scan ama yacni aad isha yargeliso adigoo xaggee ka eegaya dhowr meelood ka eegaya meelaha sida taxadar kale uga eegaysa waxaa ka mid ah titleka researchka inaad akhrido abstraga aad eegto inuu leeyahay kale introductionkiisa aad eegto laakiin ma akhriyaysid keliya isha geli oo eegun waxaad eegaysaa markaa sectionadiisa subsectionkiisa hidanadiisa waxyaabahaasoo dhan ayaad isha marinaysaa conclusionko kale ayaa yar muhiim inaad isha yar mariso yani si skim reading aad ku samayso maaha intensive reading waxyaaba muhiimka waxa weeyaan dheydka journaalkan soo baxay baad iska eegaysaa yani cilmi baarista dheydka la accept gareeyey ama dheydka la publish gareeyey oo kale cilmi baaris kasta waxay leedahay dheyd tusaale ahaan marku
researcherkii diyaariyey cilmi baaristan dabeetana uu u diray joornaalkii guddigii joornaalka ee reviewriska ahayd ay accept gareeyeen iyo datekii la publish gareeyey muddada u dhaxaysa marka waxaa laga yaabaa researchada qaarkood inaan markaa doonaysa inaad tawfiiqiso wadan waxaan u yahay research iyo inaanu hayn markaasoo kale aad doonaysa kala xaqiijiso ayaa soo kala muhiima qodob kale muhiimka waxa weeyaan joornaalka lagu daabacay inuu yahay joornaalada tusaalahaan joornaal sectorka leadingka ama magaranaysaay joornaal sifaadkii joornaal aqooneed leh sida magaranaysaay wargeysyada newska iyo waxaasoo kale aan ahayn laakiin academic joornaala waxyaa muhiimka aad sida kuwii gaawo eegaysa waxaa kamid ah discussionkiisa referencegiisa waxyaabahaasoo dhan aad muhiimaysa haddaba important waxayna sidoo kale sii eegtaa waxaa la yidhahda literature reviewgiisa LR-ka macnaheedu waxa weeyaan waa literature reviewgiisa qodobadaasoo dhan waa inaad si degdega isha u gelisaa oo aad isha u marisaa dabeetana markaad intaasoo xaqiijiso ayaad u imanaysaa sida loo akhriya haddaba researchka markaad doonaysa inaad akhrido paper baan haystaa kow abstract ayaa tegaysaa marka researchka marka laga yimaado tusaale ahaan titlekii waxaa marka laga yimaado researchka waxuu yeelanayaa titlekii kow ayaa inta badan ugu sarreeya marka laga yimaado meelaha lagu daabacay dhinka laga sameeyo qoraaga waxaa title baa ugu sarreeya titlkiisa contentska marka waxaa laga yimaado waxa uu yeelanayaa wax la yidhaahdo abstract abstractganu hadduu muxuu yahay waa summary of the research sida halkan kugu taala hadduu researchkani ahaa 20 page iyo hadduu ahaa 10 page iyo hadduu ahaa case ahaa 100 page wax ka siiyay hadduu ahaa abstractguni abstractgaasi waa mucda research kasta waayo waxa ku yaala titlekii waxa ku yaala objectivekii waxa ku yaala hadduu tusaale questionnaire oo kale ahaa inta qofee researcherka uu soo wareystay waxa ku yaala methodku isticmaalay waxa ku yaala designka methodku isticmaalay waxaad ka dhex dareemaysaa conceptual ama theoretical formationka uu researcherku isticmaalay hadda most importantly researchkan wixii laga soo saaray baad ka dhex helaysaa waxaad ka dhex helaysaa conclusionkiisii oo summarizera recommendationkiisii markaa run ahaantii waa halbowlaha researchkuba any research waxa weeyaan waa abstract abstractgu waa summary of the findings baa soo kala summary of the findings cilmibaarahani wixii uu researchkan ka helay ayuu wuxuu kusoo summarize gareeyey abstract marka waa inaad awoodda saartaa abstractga boqolkiiba boqol waa inaad awoodda saartaa midna la soco markaan leeyahay waa meesha ugu muhiimsan research kasta waxaa laga yaabaa inaad tasawurato markaa inuu yahay imsa page keliya waxaa laga yaabaa normally waa 200 page abstract 200 erey cafwan ilaa 300 erey ayuu ahaadaa gebigiisa marka waa page ama page half badanaana waa half page oo 100 erey 150 meelahaasoo kale kama badnaada haddana 100kaa erey ama 200 erey saynu hadhowta sample ku arki doono xogta researchka oo dhan baa ku taala halkaa marka taa macnaheedu waxa weeyaan haddii xitaa aad halkaa akhrido waad ku kaaftooni kartaa laakiin researchyada qaarkoodba waxay leeyihiin oo qoraayada qaarkoodba waxay sameeyaan si yacni aan clear ahayn ayay ugu qoraan dabeetana waxaa laga yaabaa inaanay si toosa kugu wada muuqanin findingkii objectivekii methodkii iyo wixii aad u baahnayd oo dhan waana intaa aad u baahan tahay markaad research critical ama aad wax kasoo xiganayso ama aad akhriayso doonayso wax kala soo dhexdhacdo waa inta ugu muhiimsan ruuxantii aad uga baahan tahay wey kolka waxaa laga yaabaa researchyada qaarkood inay si kooban u dulmaraan oo aanay wixii muhiimka ahaa dhigin waayo soomaalida waxay ku mamacdaa tusaalahaan oo kale allana la kala caabudo qawla la kala odhano marka qoraalkuna waa saas waxaa laga yaabaa isagoo researchkani jecel inuu wixiiba halka kusoo ururisa sharcigu yahay haddana inaanu wax ka tegin mar walba daadis weyban waxaan kugula talinayaa markaa abstractka ka timaado introductionka inaad timaado introductionku wax badan buu siyaa overview buu kaa siinaya background buu kaa siinaya justification fara badan buu ka bixinaya why buu researchkani titlekan u qaatay wuxuu bixinayaa gaabisku keenaya weaknessku keenaya strengthska areada ay leedahay buu keenaya qoraalada laga sameeyey buu keenaya dhammaan hoos buu ugu noqonaya then researchku markuu titlekan u qaatay kolliba waa uu ka jawaabayaa markuu ka jawaabay resultii buu soo saarayaa resultigaa dabeetana discussion argument buu ka samaynaya waa inaad resultiga tagtaa resultiga si deeply abuu uga qeexaya dhammaan researchkani variableskii uu ka koobnaa iyo termskii uu ka koobnaa ayuu halka kusoo bandhigaya dabeetana discussion buu ka gelaya
discussionka muxuu ku sameynaya researchku argument buu ku abuuraya argumentkaas maaha murankii dee yani academic argument buu ku sameynaya si critically ah ayuu meeshan ugu sharaxaya waxan marka taas way muhiim tahay inaad si deeply usii fahanto adigoo waqti badan aad ku qaadanay aan waxa kale oo muhiimaya sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad literature review eegto laakiin that's so far important muhiim maaha literature review laakiin waxaa jira meel kale oo muhiim oo aan anigu u arkay inay runtii muhiim tahay markaad arday undergraduate tahay waxaa laga yaabaa tusaale ahaan one paper baad soo heshay one paperkaasi completely relevant bay la tahay titlekaada markaad intaas soo summarize garaysato referencega maxaa ka doonaysaa wax la akhriya kuma yaalin mana jeegaranaysa laakiin maadaama researchkani uu la xidhiidho titlekaaga ama hypertextkaaga aada ugu dhow yaho ku anfacayo taa macnaheed waxa weeyaan researchyada uu soo adeegsaday oo dhan uu soo xigtay reference list ku yaala ama bibliography ku yaalaana aad bay ku anfacayaan dabeetana waxaad la mid tahay haddii lagu diray 20 research oo aad mid ka mid a heshay nin 20 iyo wax ka badan ba helay ama qof 20 iyo wax badan helay saasaa marka marka third stepkan waa halka ugu muhiimsan mar walba research paper markaad hesho abstract tag haddaad halkaa xogta aad rabtaa ka hesho waad ku qortaa kartaa sana anigoo kale masterkayga waxaan haystaa research fara badan inaan abstractgaasoo kale ku qabsanaaday oo xogtii aan u baahnaa aan kasoo xigtay halkaa horumarka qaar tusaale ahaan oo kale introductionka inaan aada u tegey discussionkana aan qaar ku tegey laakiin si u kala horreeyaan bay aada u kala muhiimsan taas waa taa waxaan doonayaa halkan inaan idinkula wadaago little bit bal aan eegno research laga sameeyey iyo sida ay tusaale ahaan oo kale abstractooda marka tusaale ahaan oo kale imika waxa laga yaaba tusaale ahaan mawduucan oo kale aan doonaya absolutely mawduucan maxaa ku yahay waa the influence of parental involvement and students performance xiriirka ka dhexeeya waalidka sidoo maamulo iyo involvementiga uu ku hayo caruurtooda iyo student performance laba saameynta ka dhexaysa marka waxaa soo dejiyay researchadan researchka waxa la magaciisa waa kan markaan doonayo inaan akhriyo waxaan tegayaa abstract waa kan abstractgani waa review horta si halka ka muuqata wuxuu ka hadlayaa dhammaan wixii uu baahnaa oo dhanba halkan lagu soo geeyay sama aragti halkan research inkastuu yahay literature review waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhan buu halkan ku qaadaa dhigaya marka waa inaan haddaan waxba ka arki waayaan introductionka tagaa marka waa muhiim mar walba inaad dhulkaas soo dhan eegto aad ba umahadsantihiin markaad videogan daawato wixii feedback soo noqda sectionka commentiga igula wadaag hana ilaawin inaad fadlan subscribe garayso channelkan si aan magaranaysaayay wax fara badan oo aqoona ugu soo kordhino mustaqbalka insha allah aad baad umahadsantihiin